بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرنتي إلهي سبحانه وتعالى بينما هدعلنا مركل لبعض تليها يجا وقرب كيجا مديك تاجن جوتدي هالك دي كمقطع وجوتدي فرضها الحمد لله رب العالمين عاو حنوه يني ماشي ساك كده قالمي فدسما وهايين أيانا عاو أنا قفرين نوعه وتشيدي هرا نوعه وأنا كده قالمنا الحمد لله رب العالمين وحربا هالكن إنان السنم إيو ciyaalka ay soo khaldeen aan fariin uga diro aniga si wacan badii garanaysaan waxaan ahay nin la sacaano wax ku bartay ku dhashay kuna barbaaray intaan ku soo leekaaday nimanka halkan taaganna waa dhalinyartii ka dhiidiyay dulmiga ee wax baranaysa iskoolada sare ku jiray haday cid argagixisay tahay argagixisay ku tilmaamaysaan idinka argagixisa waxa idin laynaya hadda iska kiin cilinaya idinko dawladana waa ciyaalka ardayda ah ee wax baratay bas kaleena xaqana noo hilinaya waxaan noo hilinaya xaqa iyo ciidan noo hilinaysa waxaan leenahay ninka maanta maqan ee dhubaantaa meel kale ku maqan ka hanqal taagayo la sacaanado maanta ku baahan qurba joogta waxaan leeyahay kaalintiina way maqan tahay qof walba ama haday gurmad noqoto haday wax kale noqoto maanta kaalintiina waa loo baahan yahay SNM hadda waxaan ognahay inay meel walba isaga soo horwacdo ilaa booliiskoodii kuwii shaqaalaha ee guryaha ilaalinayay xaafadaha ilaalinayay boqolka laanka qaadanayay in la sacaano maanta lagu soo xoreeyo deegaanadooda ay ka soo waxaynayaan waxaan leenahay guushu waa dhowdahay wax yar ba ka hadhay waa maalintii hor xalana way jabeen oo talisadooda ugu weynaa waa daawanayseen caawana wanaga buurta sayidka u hooyanayna oo joogna oo ka qabsanay inta dhimanna birina goocha cadda noo balana iyo inta kale tukaraq waa ka saarana insha Allah guushu waa dhankayga guul waxa la lahaa saxleer waxaan joogaa difaaci ahaa buurta sayidka ka hooseeyay oo xabaalaha oo nimanka khawaarijta oo SNM aan ka kicinay galabta maqribkii alxamdulillaah rabbil caalamiin ragga iyagu waa shahiideen waxna waa naga dhaawacneen waxna waa naga dhinteen laakiin alxamdulillaah guul baa joogna caawa haddaan difaaci ugu jirno oo midadkooda halkan ay yaalaan midkaan kan yaalaa qaado ma ugu yaalaa midadkooda waa kuwa ilaahay guul baan gaarnay insha Allah waana guuleysanaynaa difaacooda ay galabta jireen ma hadda ku sugannahay taliyo bal waxaad nooga warbixisa khasaaraha iyaga gaaray ma qiyaasi karaysan inuu khasaaraha iyaga gaaray rag badan ilaa 10 baan hadda goobta hadda ku suganahay yaala meelkoodii waxna waa wax dhaawac oo ay la carreen marka awu khasaaro way jira khasaaro badan baa iyaga gaaray oo aad u tiro badan alxamdulillah anaga khasaaraha iyagu ma badnayn 2 iyo 3 waxaan ahayn iga soo gaaro khasaara laakiin ragna waa dhaawac ragaasuna ilaahay caafiyo intii ku dhimatayna xaq way ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto alxamdulillah rabbil caalamiin bal waxaad warbixin kooban naga siisaa basida duulaanku maanta u socday iyo sida u kiciseen duulaanku marka hore culays bay soo saareen dhammaantood intay ilaalintay waxay hub iyo gaadiid haystay iyo technical meesha bay soo saareen marka waxa technicadiina de raggan dhalinyarada oo xaq u dirka waa hal mar galay caawa maqribkii aan ka saaray difaaca ما شاء الله عاو waxaad u hooyeenaysan taliskoogu baan joognaa difaacogu baan joognaa aroortiina haday caaw kala yeesan marmid baan qabanana waan malaynaysaa insha Allah hadii Allah salaamaya dadweynaha shacabka heer ICC annagu waxaan ka soo hadlanaa jiidii hore ee maanta lagu dagaalamayay baan joognaa xoriyihii ee xalay deganaayeen baan hadda caaw ka hadlanaa waxa weeyaan nimankaas horta nimankii dawladda sheegan jiray ee maamulka sheegan jiray dhigi jiray dawlad baan nahay maamul baan nahay horta waa fashilmeen caalamkuna waa og yahay ummadda islaamkana waa ogta waxa weeyaan meel ay ka baxaan bay la yihiin wiilasha yar baabuurta saarana meel Allah meel ka bixin bay la garan la yihiin ma joogeen ilaa iyo hadirtadaas marka annagu xoriyahoodii baan ku sugannahay waxaan ugu baaqayaa oo aan leeyahay sanabay carruurta yar aad meesha ku soo qaladeen kala bax hadii kale waa lagu quraacanayaa insha Allah nimankan SNM ee dawladda soo sheega waxay yiraahdeen dadkan la dagaalamaya waa argagixiso iyo ummada jaan waxaan u sheegayaa oo cadeynaya in laas aanad ku dhashay oo ku dhaqmay wax ku bartay inaan ahay oo dulmigay wadeen iyo diiday kibirkooda kana dhiidhiyo qoriga ka qaatay lana diriray asagu meeshina ka qabsay waxay yidhaahdeen hal saac baan ku qabsanaynaa laascanood waxay badayla hadeertada xataa inay hariraha ku soo dhawaan waayaan nimanka dhan dawladda soo sheegay intaas oo sano jiray caalamkana doonayay inay gobolgoos ka helaan hal saac baan ku qabanaa bay yiraahdeen ilaa ay haddana dibad wareeg bay Kenya xataa kuma soo dhawaan xiriireed 27 saacadood bay ku qaadatay 27 saacadood bay ku qaadatay hadda 48 saac bay ku sidqasaaba shalay goobaha markay
nimankan farduhu ay ku galeen ay ku jaanjaameen waxa la haysteen kaga dirteen diimadoodkoodii wali waa yaala bal nin dhow dawladda soo sheegay meedkiisa soo doonan waay mi wax tar buu leeyahay mise waa waxa lagu sheegi karaa haddii argagixiso jirto Soomaaliland argagixisa wiilasha dhalinyarada ah meesha la soo khalday la soo diray waxaan leeyahay gudihii baan intabay haday Soomaaliland qaysay meedkiin oo ilaahay hadeertada xataa isna fiin warkaga hayno waraabuhu ku cunay meedkiin gudihii intabay yaalan ka soo khalday malay hooyooyinka reer Hargeysa reer Bro ciyaalkiin halkan ninkii yimaada uu dhimanaya hataa dhaawac male madaxa iyo saabley ka wada taal waa niman waxay islayn doonaya dal ay islayn ku dooday taan warkan asmaada ku bartay oo hadeer waliba dugsiga sare ku jiray ka dhidhiyay dhibaatada ay wadaan oo qoriga ka qaatay meesha ay ugu sheegayaan leeyihiin argagixisa jirta argagixisana waa ayaga helmo ogeyn malayaga argagixisa xaqan u dagaalamayay waxaan ku afuufinay madaxan kooda dhacay waxay moodeen dad balaaya soo tababartay dadkii asmaada ku bartay joog jiray waan aad ku taqaaneen